boqor Cabdullaahi Axmed Cali iyo garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud oo kamid ah garaadada dhaqanka iyo isimada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland waxay si kulul uga soo horjeesteen heshiis 17kii bishan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ku dhexmaray madaxweynaha maamulka Qaatumo Cali Khaliif Galeyd iyo mas'uuliin ka tirsan Somaliland. garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud ayaa ugu horeen shirkan ka hadlay waxaana uu ka waramay sababaha xilligan uu ku diidan yahay heshiiska Somaliland iyo maamulka Qaatumo ku dhexmaray magaalada Hargeysa. anagu shirka Hargeysa maamulka Hargeysa iyo shaqada ka socota iyo soo saaro go'aamadiisa shirkiisa dambe midna shaqo kuma leeyin qaali mustamaan maqaysaa koodin ha maqlo muslim ka maqlo gaalada maqasho waa shaqo kuma leeyin waxaanu kala nahay dad wadankiisa kala jooga isku eegasayn isku abtisiyahayn hadii dhaarshay reeriyo Soomaaliya iyo xidid iyo wax jireen iyaga diido xumeeyay shaqana kuma leeyin mana raacayno mana hoos galayno hada qaranka noo furfuri maayo wax qaybsana kama rabno saamina maqnama doonayno waxay naga maqnaanaya haday maamulka dhaqaata ma doonayno. sidoo kale garaad Saleebaan oo kamid ah garaadada dhaqanka miisaanka kule deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka waramay aragtida uu ka aaminsan yahay maamulka Qaatumo ee madaxweyne Cali Khaliif Galeyd. Cali Khaliif ee maamulka hadda uu wato anigu baanta weyn hadda uu maanu dooran wala wada ogyahay yeerka markay mas'uuliyiin istaagaan waxaan dir faraha ka qaada waa noo wada sheeganayeen hadda wax qabanayaan faraha ka qaada u maanir saasaan isaga daynay aan dhowr goorna waan ka hadlay way soo wadaan iyo foolxumada ku dambeeyso baalee nuuriye haddaan taag gudo ninkaan ka raacay intuu ku hadlay haddaan u daayo waxba kama dhina inkastoo xoogaa inqaa ku daray waxba kama dhina laakiin waxaan uga jeednaa rag ayaga hadlaya yaan la oran nin qura hadlayo intooda kale waa diidan yihiin yaan la oran baan uga jeednaa. boqor Cabdullaahi Axmed Cali Dabagooye oo geystiisa shirkan ka hadlay waxa uu sheegay in isimada garaadada dhaqanka iyo nabadoonnada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka midaysan yihiin aragtida ay ku diidan yihiin heshiiska Somaliland iyo Qaatumo. garaad Saleebaan taa ku hadlay waa la qabaa boqor Cabdullaahi Axmed Cali baan hay waa la qabaa garaad Jaamacna meel yar oo gudaha iyaga aanu ku saxayna mooyaane waa la qabnaa isagana inta yada kale ana kulligay isku raacigaas aanu nahay waxa marka ku hadli mayno anagu magac kooxeed iyo magac maamul aan jirin sheegashadiisa ku hadli mayno beelweynta dhulbahanti magaceeda ee aanu dhaqanka u nahay baan ku hadlaynaa waxaanu isku raacsanahay kuwa tagay ee hadda yiri waxbaanu ku biirayna naguma metelaan arinta oo beesha kuma metelaan kuwa garoocashada wadaana in yari u go'ay mayso ummadweynta iyo deegaanka ay taal iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda yaa taladu ka go'aysa. Umar Soomane, Universal TV, Garowe.